بسم الله السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم kusoo dhawaada madbaqa muna maanta waxaan la qaybsanayaa macmacaan fudud oo Norwegia oo la yiraahdo kaneel boller kaneel waxaa laga wadaa qorofal af Norwegia af English waxaa lagu yiraahdaa cinnamon rolls cinnamon waa qorofal marka af Soomaali waxaan u bixinaynaa qorofal Soomaaliga inaan afkeena ka dhignaa qani oo ballaarina marka kan waxaa la yiraahdaa qorofal waxaad ka dhigan kartaa snack subax caruurta iskuulka u qaadan kara subaxii waad lagu quraacan karaa marka qaarkood casariin waa laga dhigan karaa waxaad u baahan tahay marka ugu horeysa waxa weeye 25 gram oo yeast ah ama khamiirad fixiso hal beed ah hal ukun ah sonkor 100 gram 100 gram sonkor ah iyo caano 250 mililitr caano ah iyo 70 gram oo daqiiq ah ama bur ah marka hadaad haysan scale ama miisaankan wax lagu miisaamo koobkii maalintii hore ku miisaanay ayaad ku miisaami kartaa marka waxa weeye 5 koob oo daqiiq ah ama bur koob iyo badh caano ah koob sonkor ah iyo xabad ukun ah iyo fixisad iyo 2 malgacdood oo waaweyn ah marka ugu horeysa caanaha ayaan diirinaynaa diirimaad kaliya la rabaa ma la rabo inay xoog u karkaraan hadduu xoog u karo fixisada markaan ku darno fixisadii baa dhimanaysa oo wax ma tarayso wax ma faxayaan marka fardiris baa la doonayaa caanaha in laga dhigo kadib waxaad ku daraysaa fixisada markaad ku dartid waad walaaqaysaa kadibna waad dabooleysaa oo muddo 5 daqiiqadood ayaa sugaysaa intay caanaha iyo fixisadu isdhex galayaan marka 5 minutes ayaa dhigaysaa oo sugaysaa insha Allah 5 minute kadib markaad ka qaadid waxaad ku daraysaa sonkortii iyo beedkii oo isku walaaqaysaa si fiican iyagana kadibna waxaad ku dhex daraysaa daqiiqdii ama burkii oo walaaqaysaa si fiican markaasaad bilaabaysaa inaad xashtid cajiinku hadduu ka adkaado daqiiq yar baa ku daraysaa bur yar baa ku daraysaa jileecna lama doonayo adeegna lama doonayo dhexdhexaad ayuu weeye inuu noqdo cajiinku marka anigu 2 malgacdood oo daqiiq ayaan ku daray haddana waan yara xasheeyaa kadibna waan dhigaynaa muddo saacad ah ama 2 saacadood waxay ku xidhan tahay fixisadaadu say hore wax u fixiso iyo si kale haddii ay fixisada fiican tahay oo qawiya oo adag saacad way kugu filan tahay laakiin fixisada hadayna adkayn oo si fiican wax u fixinayn waxa dhici karta 2 saacadood inaad sugtid laakiin muhiimaddu waxa weeye inaad eegtid oo cajiinkii uu laba jibaar u noqdo suu ahaa yani saas marka saas ku garanaysaa inuu soo faxay marka insha Allah saacad ilaa 2 saacadood wixii u dhaxeeya ayaan dabooleynaa oo aan dhigaynaa insha Allah
imika waa kan wuxuu yaalay saacad iyo badh aad buu soo faxay kor buu soo qaadmay double the size ayuu noqday markaa imika waxaan sameynaynaa waan la waxaynaa aad baan u fidinaynaa flat ayaan ka dhigaynaa waxaan sii diyaarsaday halkan sonkor iyo subag iyo daqiiqdii aan ku la waxayay aan ku fidinayay subaga aan dhalaaliyay waa 50 gram qiyaas ahaan waxaad ka arkaysaa inuu yahay koob barhkii marka subaga iyo sonkorta iyo qorofalka lagu darayo qofku isaga ikhtiyaar leh laakiin subagu inuu ka yaraan 50 gram waayo wuxuu noqonayaa haddii kale cajiinku wuxuu noqonayaa qalayl buu noqonayaa laakiin sonkorta anigu waxaan ku darayaa imika 2 malgacadood oo waaweyn oo sonkorta ah iyo qorofalka aad baan u jecelnahay marka waan ku badiyaa marka qof kasta iyo ikhtiyaarkiisa weeye laakiin yuu ka yaraanin subagu 50 gram waayo haddii kale qalayl buu noqonayaa cajiinku markaad si fiican u kala fidisay oo bixisay qorofal quraac magaca ilaawina magac cusub weeye Soomaaliga waan badinaynaa insha Allah kelmado cusub aan keenna qorofalkii markaad samaysay oo kala bixisid oo qorofal ku dartay qorofalkana mid shiidan weeye haddaad haysan waa inaad soo tuntaa ama soo shiidaa qorofalka markaad ku dartid iyo sonkortii iyo subagii you roll them up waad laalaabaysaa marka wala laabtid kulligiisa wada laabtid waa jaraysaa ka ugu horeeya ka ugu dambeeya badan oo yara buuran yihiin ama yar yihiin laakiin inta kale isku size bay noqonayaan same size bay wada noqonayaan kadibna marka saa u wada jarjartid midda ku wada jarjartid kulligood waxaad saaraysaa baking tray waxa weeye the baking wax karista marka wax la karinayo
trayna waa tarayga, marka tarayga wax kariska ya saas ma bixina tarayga wax kariska. Anyway, baking tray baa saaraysaa oo waxaad xasuusataana inaad in yar kala fogeysiisid say iskugu dhegin. Marka baking trayga haddaad haysan waraaqda baking paperka, waraaqda wax lagu kariyo haddaad haysan, waxaad samayn kartaa subag ayaad marin kartaa, daqiiqna dusha kaga daadinaysaa, daqiiq yar suuna qorafalka ugu dhegin tarayga wax kariska. marka saas samaynaysiin haddaydan haysan baking paper. haddii kalena waraaqda wax lagu kariyo ayaad saaraysiin tarayga, kadibna waad kaxaysiin hana iyo isku dhadhegin. haddaad isku dhadhaweysid oo isku dhagayaan hadha waxaa dhici karta inay kala fuqi waayaan ama mid dhinac ka jeexmo, marka insha allah iyo isku dhegin. markaan saa wada taxno waan dabooleynaa muddo nusu saaca ayaan sugaynaa, sidii markii hore oo kale intuu double the size noqonayo, intuu laba jibaar noqonayo ayaan sugaynaa. kadibna dabkaan u shidaynaa shoolada. shoolada wuxuu ku jirayaa 25-30 minutes meelahaas, 25 daqiiqadood ilaa 30 daqiiqadood. shooladuhu isku mid maaha, waxaa dhici karta shoolad inay 45 daqiiqadood qaadato, marka waa inaad eegtaa intuu yeelanayo colorka golden brown, bunni dahabi oo eg markuu yeesho ayuu bislaaday. kadibna waa kasoo saaraysiin. markiiba markaa kasoo saartiin suu cool down u sameeyo uu qaboobo, waa inaad ka qaadiin taraygii oo mid kala saartiin, mid ama blade weyn haddaa haysatiin, aduu meel kale waa inaad saartiin oo space u yeeshiin sida hawadu dhex gasho cool down si fiican u sameeyo. haddii kale wax dhigtiin isku dhego. markaasuu diyaar yahay. casariyaa ka dhigan kartiin, caruurta nus saaca iskuulka u qaadan kara, subaxii marmar baa lagu qoraacan karaa. dee weydinkaas qorafal qoraac. aad ba mahadsantihiin. baaraka allahu fiikum. wassalaamu calaykum.